faracyada sii faafaya ee xarunta cilaajka Daarutooba ka soo foocmaya waa kuwa had iyo goor ka yimaada fikirka Sheekh Rusheeyare ee ku faafan danaha bulshada u baahan inaanan afka keliya looga sheegin ficilada faa'iidadooda ay ku jirto ee fulintooda murugada ka faa'iideysa fuulalkooda. Falalkan maanta laga soo faafinayo qaybtan dhaqan celinta ee dadku badankiisa finawaa ku ah maadaama inta aan si rasmi ah loo shaacin xubnihii sheekha ku kalifay dhawaanahan inuu u yagleelo xaruntan sida gaarka ah loogu sameynayo daryeel nooc kasta leh, bee-ad ka masaxaysa tii ay ku soo bedelmeen iyo fayadhowr kaalin mug weyn ka qaadanaya nadaafadooda iyo badqabka caafimaadkooda, xasuusinta iyo dib u baridda tarbiyada ku toosinaysa nolosha hagaagsan, intaasoo idilna ka marnayn qur-aan saarkii lagu ciribtirayay shayaadiinta asalka u ah cudurrada lagu baadiyeeyo qofka muslimka ahi. waxayna mararka qaar shayaadiintaasi Allah naga haya dhabaha xun u horseedaan shakhsiyaad la moodo in ay kaskooda ugu farabaxsanayaan daroogada dilootay maankooda ee daaqilka u dhigtay darxumo, dabarsasho, dagaal daqaro gaarsiiyey iyo dibindaabiyeenta ummadda. kumanaan jinniyaati diyaar badan ay ka soo raaceen kan meel walba badda xaafadda gurigeena dawaajiyo gurigeena dignaayeen gurigeena ka soo raacay guriga dignaayeen joogtay idinka guriga ka raacday guriga badda meel walba badda weyn xalane laga soo mintanka waxaa ku jirnaa 2 sano waa dhantahay 3 sano qofkan balwada iyo qashinka idinka siinaa asa doonahay yaa ku diraya marka ana u direen inta ku diraya markuu isaga doonana maskax muu haya maya maskax ma haya madaxa ku dir madaxa kale iyo dhabarka lafaha waa taaganahay korka martaba maya rudrima ninka maanta lagu bilaabo عافمات عافمات ودوق ونبينا ان شاء الله قبول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مقعد عبد الله النور هاي بعنوس عبد الله أستاذي الحمد لله وفي عنه ميلان حسك دبرك ميلان الحمد لله halka qaarka kalena daroogada ka daadisay damiirkooda dareenkii lagu kala garan lahaa xumaanta iyo wanaagga nasiibna u yeeshay gadaal dambe qoysaskooda inay u diirnaxaan ee daymada siin waayeen maadaama ay isku dub yihiin oo la dandareysan yahay magaca reerkooda iyo midda mustaqbalkiisa. الحمد لله رب العالمين ما دعنا نزل ماله الحمد لله رب العالمين ما لك في عنا ما دام ما ندير كان قالها الحمد لله رب العالمين يمكن ما جاي كان غير الله سيء ولكن عندي كان وهو محمد يقول لا ما كان زورع انا اسكي وزورع اسي وهو مليادين الجلسين ما هو كان مايا انا جيني وانت كان ابكم هذه وبلوت اقول نستي الحمد لله رب العالمين شري الجلس تاعنا هاي ودadkuna ay nacabsiin laakiin maanta dadkana ay jecel yihiin ma sha Allah. dhakhtarku waxa uu ka caabiyaa xaruntan jirka shakhsiyaadkan ka dhaqidda sunta daroogada ah iyo daweynta dhaawacyada ka muuqda xubnaha falaagada ku ahaa bannaanka ee dirqiska lagu keenay xarunta laakiin loo adeegsanayo hannaan ka caagan waxyeeleynta xitaa laga xijiyey tubooyin jirka ka ilaalinaya garaafooyin ay u geystaan ama ay u geysan lahaayeen katiinooyinkii gabaadka u ahaa marka meel la isugu wada keenayo inaanay isku xadgudbin maadaama xubnaha qaar dagaalamayaan miirkoodana maqan yahay. geesta kale Dr. Siyaad ayaa dhankiisa qiray inay tahay tallaabadan mid ku cusub tan iyo intuu arkayay goobaha dhaqan celinta midda Sheekh Rusheeyarena ka hirgeliyey Muqdisho gaar ahaan meel ku dhow xaruntiisa Quraan saarka Dherkiinley ay tahay mid ay sabir wanaagsan ka qaadan doonaan dhammaan xarumaha ay isku shaqada yihiin.
دكتور سياد كسو دhowow xarunta cilaajka daarutooba gaar ahaan qaybta dhaqan celinta ee lagu xanaaneeyo dadka waalidiintooda ay ka soo deeriyaan marka hore xaruntu waa timid marka iimaaneysay maxaa ka socday ما شاء الله هذا مصور رجينا هذا مقدوة حرمته مادام adigoo magacaaga ku bilaabay dadka isbaraay marka hore عبد الله علي سياد وكم عليه دكتور سياد وكما كهول قال تجمع الكيمي قاسة دبكاميو إلا دبك حاجات فما شاء الله هذا مقدوة حسن هاي مادام معلم كواشن نقص كردي حرمته أنا كعلمتها لو حنانيو ضدك درجة يقاشن كوقت كسوقني مرجع وهرين تورتا وفرح ما شاء الله وصلوا هنا وقت يقول أنا كان هدي أنا دكاتير كسوماليات خاصة دكاتير تركين لي معلم قربي سنتاجنا هول والبق هرين والبق أحمد الوجب هاي مشان إن أنا وحكي قوانين وعن قربي سنتاجنا له وما كيقوليس وما أنت إماده وكان حمصان الله عقبه أو إماده وكان كاس حمصان بيو اللي يرى دريسين قاسوا داوع كذا سوى العيب بنانك أصير استعماله وحيابه مقادرات يدروين يداوين كلا درس وحيابه كلا هذه حشيشة إيقاد الحمد لله ما شاء الله وما يقول رسالة مبارك سناي معلم كنا جرب في سنتين إن شاء الله أنا قاعد قاتير صوماليات قاصد قاتير تركين لي ولا شقين دون إن شاء الله دولة يرى معلم كنا خلينا فليتفضل وما سنتهاي دكتورة مدة أيها كل حجر تعرمان عافماتك ما دعدي إن يعني حرون رقم علين أو كله سدان لقى غيره. وهذا ملي من ماركين لكن مركي هو رئيسي أو حرون رقم علين قرآن صارنا له ذاتك اللي قلت وسينا أيو هم دو عيدين لغو سمعين أيو حدنا أذيك عافمات لغو سيتر أيو ما شاء الله معلم كود دالي ذلك أودا علينا سيود أنا كنا وحول بو وقال أنا وقال أنت أحمد داو أما طلع علمي ديارا كلنا وحي طلع عافمات أو أما قرب استاجده أنه قرر كبار تعطير الصومالي عن كمية هاي وعلينا وسودوين إن شاء الله. dadka qaar inta badan waalidiintu waxay islaayeen ayaga yani gacmahooda isku duleynayaan markii dad badan la quraamiyay meesha waxa ka soo baxay dadka qaar oo waxaan ku cadaadinayaan shayaadiin ee luminayaan marka hore muu aaminsaneed qof yani dhaqan celin ku jira haddana laga soo dulhadlayo ما شاء الله ومرة جوريس أن قلبت أركي لينتها هايو دروغداني قشنكاني وحنا استعمالي واللي وقصباي وجيني وحيابك لي وقصباي مركي وعرين منطقة لا يابيت ومعقول وحكرته وحنا ويجرا جنكن ويجرا إلى القرآن كعبي وحير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مرة إن شاء الله وعرين هذا في عن إن بفن القرآن يسوداوي عقمة عن يسوداوي لبضه ونفسنتاي هذا نسوداوينا وأرد جرته وحنا عينه ugu dambeyntii sheekh cabdilaahi cumar cabdi daawle sheekh rusheeyare ayaa sheegay in ay ku dadaalayaan inta karaankooda ah mas-uuliyadda ka saaran walaalahan xanuunsan ee u baahan ducada iyo diinka alleh alxamdulilah rabbil caalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin wala cudwaana illa cala alzaalimiin yaquulu allahu tabaaraka watacaala innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa ila aakhiri ilaaya yani ilaahay baa madle subxaanahu watacaala in badan oo ka mid ah ummadda muslimiinta khaasatan ummadda soomaaliyeed in badan oo ka mid ah ilaahiy subxaanahu watacaala sababteega dhigay baamaada iskale hadday noqoto dad cudurro halisa lagu sheegay iyo hadday noqoto dad maaragtay caadi u wallaa ee katiinadaysnaas aad horeyba u aragteen waxaa ilaahay mahadi ah oo in badanna aan ku haminayay in maaragtay qaybtan hadda aan samaynay beryahanba hoosheedii socotay ramadaanka intii lagu guda jiray la bilaabay إله سبحانه وتعالى يفرض ما هذا إله بس كله قيبتها وأنا علم ضدك مخاضراتك يو حشيشكي يو عايز والديك يا مضدك والدين تاي مارك هواين المارك تاي عن قبته كدمنا عليه هو هذه السنة آيات إله سبحانه وتعالى كتاب القرآن الكريم كا يو إله سبحانه وتعالى أن يوكاشن خبرة يو علم إله سبحانه وتعالى السيء إله يفرض بما هذا إسكاله مركا سأل أركي سنبا هذا ضدك القرآن مني وحي هاين ضدك قالوا لو سو حري وحكى هذا الشياطين بهاين
wiilkan muslimka haddaad arkaysina shayaadiinta ka qaylinaysa dhahaysaa badaha iyo meelkaasaan ka soo raacnay dee waxaan kalaatay mukhaadaraadka markuu isticmaalayeyna isaga laftarkiisu maakii muu joogin oo maskaxiisa may joogin annaga unba maaragtahay qofkaan dulka ka bixinayna ama annaga khadka ka bixinayna marka ilaahay subxaanahu watacaala ee galabta wiilkan muslimka ah ee maaragtahay waalidkiisa baari buu ahaa in maaragtahay galabta wixii ayaga ahaa oo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankii ku fashilmaaday maada ilaahay baa iskale waxaan rabaa dadka xarumaha noocan oo kale u furan inaan baaq u diro taa oy tahay ilaahay subxaanahu watacaala isagoo la hadlayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa nabillaahi maxamedow isagoo maaragtahay adeerkiisa abu aalib gaalnimada iyo maaragtahay kufaaru quraysh oo la safan yahay oo haddana mar walba ku celcelinaya in ilaahay subxaanahu watacaala rumeeyo ama aqala qaliil inuu ku dhawaaqo tawxiidka si ilaahay subxaanahu watacaala maalinka qiyaamaha hortiisa ugu doodo oo maaragtay shafaaco ugu dalbo oo maaragtahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u yidhi oo maaragtay adeerkiisina wixii maaragtay iska madxaadkeeyey ilaahay baa yidhi subxaanahu watacaala innaka laa tahdi nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam laa tahdi man axbabta cidaad jeceshahay ma hanuunin kartid baa layidhi oo laga wado adeerkiisa abu aalib walaakina allaha yahdi man yashaa qofku uu hanuuniye waa ilaahi subxaanahu watacaala hanuunka waa labo midna waa hidaayatu dalaala midna waa hidaayatu tawfiiq mid waxaa weeye anigoo kale tusaale inaan ku iraado ni wadadan waa wadda saxsan maa tanaa saxsana tan qaad taasi waa hidaayatu dalaala waa tusin weeyaan waddadii toosneed aniga kuu tilmaamay hidaayatu tawfiiq wax la dhaha jira ilaahay baana shaqo ku leetaa weyn waddadii toosneed oo aniga aan kuu tilmaamay inaad qaado waafajinteeda ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala marka dhammaan walaalaha muslimiinta waxaan u sheegaa xarumaha noocan oo kalada oo dadka lagu garaaco maaragtay dadkii cagaha laga garaaco oo waxyaabo maaragtay caafimaadkooda aan u fiican loo adeegsado ilaahay subxaanahu watacaala dadka ha looga baqo qofka laguu dhiibo nafsadiisa ammaano bay kugu tahay ammaanadana waxaa la rabaa say tahay inaad u gudato dhulka iyo cirkabaa iska diiday iyo buuraha bani aadamka baa ximbaaray wuxuu u ximbaarayna ilaahay uu sheegay innahu kaana daluuman jahuula waa mid dulmi badan oo haddana jaahil badan buu ilaahay ku tilmaamay subxaanahu watacaala saa darteed marka walaalaha muslimiinta waan kaga digayaa dadka loo keenay inay maaragtay ku dadaalaan ay tarbiyayaan waddada khaldan ilaahay subxaanahu watacaala iyaga sabab inuu oga dhigay inay ka leexdaan in dadka loo naseexo loo tartiibiyo ee maaragtay ganaacista badanna laga daayo taa horta waa dardaaran waxaan kaloo rabaa inaan la wadaago ummadda muslimiinta meel kastay joogaan insha allahu tacala waxaan u furi doonaa waxaan u qaban doonaa xarunta dhaqan celinta iyo ruqyada sharciga daaru tawba waxaan u qaban doonaa insha allahu tacala xaflad furitaan billahi tacaala taa aan rajaynayno mas-uuliyiin kala gedisan oo maaragtay aan ku casuumi doono oo maaragtay igana la soo qaybgeli doonaan insha allahu tacala marka dadka halkaan ku jiran waxaan ilaahay uga barya subxaanahu watacaala dhaqanka toosan ee suuban ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waddadiisii ku hagaya inuu ilaahay subxaanahu watacaala ay ku rido oo maaragtay ilaahay u fududay waddadaasi wiilka muslimka hadda laga qeyliyana cadowga shaydaanka ilaah ka saaray ilaahay subxaanahu watacaala jidhkii ka saaro oo ilaahay dib dambe ugu socdeen hada billahi tawfiiq asalaamu calaykum waa duwistii farsamadii iyo codayntii anigoo ah maxamed yuulka inta aan warbixinta lamida kulmi doonno asxaabay nabadgelyo